maanta halkan shirka jaraa'idaan ku qabanayo wuxuu jawaab u yahay shirkii beesha direed ee aanu ku qabannay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa oo ahaa shir nabadeed oo dadka walaalaha ah dir ee geeska Afrika degan meel kasto ay joogaan aanu isugu keenay oo shir nabadeed ahaa oo shir wada tashi ahaa oo shir siyaasad ka madax bannaan ahaa ayaa waxa ka soo baxay jawaabo badan iyo gardarooyin badan iyo qadaf badan kaasaan doonayaa inaan ku cadeeyo arrintaas marka ugu horeysa waxaan u sheegayaa dadka afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaanba inuu dirku yahay qabiil wada dhashay oo afar walaalaha oo ilma dira ka kooban الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bishaaro macadka imaamu naafic waxa uu quraanka kariimka kugu baraya hab casriya oo online ah adiga oo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo bulshoy haddii barashada quraanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxa kamida barashada quraanka iyo higaada علومة الشريعة تربية أوبتك إيا اللغة العربية قراءات كقرآن كريمك إيا برشاد الصلاة إسقرشت واي سعوتا وحي فافاهين إنتا سيدة كلا حرير تليفون دا إيا عوان دا كوم موقنية مركزتا إيا ميل كستا بلشوي بلنتين waa macadka oo degan geeyiga Soomaalidu degto oo dhan haday tahay dalka Djibouti hadii ay tahay dalka Itoobiya hadii ay tahay dalka Kenya hadii ay tahay dalka Soomaaliya iyo Somaliland waa reerka ugu facaweyn oo la yaqaano inuu ugu facaweyn yahay waa sheeko gashay mahmaahaha iyo gabayada Soomaalida ku jirta inaan cid la da'i jirin qamaan bulxan oo hadii jeer marka reference la soo qaadanayo sheeko la doonayo runteeda la gaadho inaga waxa inoo agabayga suugaanta ayaa inoo la soo qaata qamaan bulxan oo ugu afdheeraa raggii gabiyaasha ahaa ee Soomaalida wuxuu yiri isaaq dir weeye hadii uu duulan soo bixiyo durji habar magaadlu haduu dabarka soo goosto dumbuqiya rasaastii hadii uu dabacsan uu siiyo hortayaa la daa waynu garan dawiyadaad xuliye inaan cid la filaanay jirin buu sheegay waxa weeye dadka maanta ka qaylinaya iyadoo dadkaasu ay iyaga danahooda ka hadlayeen xaqna ay u leeyihiin dadka maanta ka hadlaya ee xagga kale u rogaya aad baanu uga xunahay waxaanuna u sheegaynaa inay sii kacaan mooyo ummadan ay reesgareeyaan mooyee inaanay hadaladooda aanay waxaan ku qaboobaynin waxay ahayd boqortooyo qadiima oo 500 oo sanadood ka horna dagaal xoog leh lagu qaaday oo gaala waran leh iyadoo ku qaaday oo Axmed Gurey hogaaminayay oo la garanayo maantana waa dadka ugu tirada badan oo intaas oo meelooda geeska Afrika degan